gabadhu waxay ku dhex dabaalaneysay badda iyadoo nasanaysa ayuu si kedis ah libaax badeed shark gacanta uga gooyay. Dhiig ayaa biyaha badda ka dhigay kuwa guduudan. Saaxiibadeed ayaa si degdeg ah nabarkeeda ugu xiray faashad waxayna markiiba ula carareen cusbitaalka. Waxay qarka u saarnayd inay suuxdo dhiig bax xad dhaaf ah awgiis. Kadib in ka badan hal eber saacadood oo daweyn degdeg ah waxay si mucjiso ah u soo miirsatay. Waxay taabatay gacanteedii maqnayd. bil uun ka hor waxay ahayd horyaalka tartan hirarka lagu dabaasho. Hal shil ayaa nolosheeda bedelay weligeed. bilo kadib dhakhtarkii ayaa ka furay faashadihii. Gabadhii waxay eegtay jidhkeeda aan dhammaystirnayn. Waxay isku dayday inay xakamayso dareenkeeda. Ma aysan doonayn in qoyskeedu ay walwalaan. Laakiin saaxiibadeed hortooda way is-celin kari weyday oo ilmadu way ka soo daadatay. Gurigeeda ayay ku noqotay waxayna u sheegtay qoyskeeda inay doonayso inay mar kale hirarka ku dabaalato. Maalintii xigtay qoyskeedii ayaa u raacay xeebta. Aabaheed ayaa agteeda joogay si uu u ilaaliyo. Gacan laantu waxay ku adkaysay inay isku dheelitirto. Waxay dhacday marar aan la tirin karin laakiin weligeed ma aysan quusan. Markan waxay si guul leh ugu istaagtay looxii. Qoyskeedii ayaa u dabaaldegay. Markii ay kalsoonidii dib u heshay waxay nolosha ka heshay rajo cusub. Waxay go'aansatay inay mar kale tartanto. Wixii intaas ka dambeeyay maalin kasta way tababaran jirtay. Waxay ahayd inay dib u barato isku dheelitirka. wax yar kadib way la qabsatay jidhkeeda cusub. Maalintii tartanka garsoorihii wuxuu siiyey 5 daqiiqo oo ay kaga horeyso kuwa kale. Laakiin way diiday. Waxay bilowday isla waqtigii ay bilaabeen tartamayaashii kale. Inkastoo ay dhamaystirtay dhaqdhaqaaqyadeedii dhibcaheedii way yaraayeen. Mawjad ayaa xitaa liqday. Nasiib darro kaalin ma aysan gelin. Suxufiyiintii xeebta joogay ayaa doonayay inay ka warramaan sheekadeeda taas oo ka xishoodisay. Waxay dareentay inay wax walba weyday. Maalmo kadib warqado ayaa uga yimid daafaha adduunka. Sheekadeedu waxay dhiirigelisay dad badan. Dadku waxay ku dhiirigeliyeen inay mar kale tartanto. Aabaheed ayay u sheegtay inay doonayso inay ku noqoto tartanka. Wuxuu tustay loox si gaar ah loogu sameeyey. Maalin kasta si adag ayay u tababaran jirtay. Maalintii tartanka waxay ku soo laabatay goobtii tartanka waxayna ka gudubtay caqabad kasta. Waxay heshay dhibco sare iyadoo samaynaysa dhaqdhaqaaqyo ku dhawaad quman. Si kastaba ha ahaatee dadkii ay la tartamaysay aad ayay u adkaayeen. Tartankii wuxuu ku dhawaaday inuu dhammaado gabadhiina weli way sugaysay. Waxay sugaysay mawjad weyn. Awood ayaa ka soo kacday dusha badda. Gabadhii waxay u gurguuratay dhankii mawjadda. Dadkii la tartamayay ayaa iyaguna doonayay inay qabsadaan mawjaddan weyn. Si kedis ah ayay biyaha hoostooda u kuustay iyadoo si kuman u waqtigeysay waxayna ka soo dhex baxday mawjaddii. Qof kasta wuu u saameeyay. Adkaysigeedu wuxuu taabtay malaayiin qof. Ugu dambeyntii inkastoo ay gashay kaalinta 5aad oo kaliya laakiin waxay heshay ixtiraamka dadkii ay la tartamaysay. Waxay ka gudubtay nafteedii hore. Filimkani wuxuu ku salaysan yahay sheeko dhab ah. Magaceedu waa Bethany Hamilton. Maanta waxay rumaysay riyadeedii waxayna noqotay qof caalami ah oo xirfad leh ku ah hirarka badda.